intooda badan dalalka adduunku waxa ay ku tiirsan yihiin dhaqaale ahaan cashuurta laga qaado muwaadiniinta iyo tan ka soo xirota shisheeyaha imanaya ama ku ganacsanaya dalalkooda. hase yeeshee kuwan dalalka aynu muuqan kugu soo gudbinayno miisaaniyadooda qayb kama aha cashuurtu. waxaadna halkaa ku ganacsan kartaa ama ku noolaan kartaa adigoo aan la cashuurayn hantidaada. boqolkiiba 50 ama ka badan ayay dalalka qaar dakhligooda cashuurtu ka tahay. kuwaanse dakhligooda cashuur kuma tiirsanan lagumana tiriyo. isu tagga Imaaraadka Carabta. muwaadiniinta dalkan lagama qaado cashuurta iibka iyo midda dakhligooda midna. weydiin ayaa imanaysa halkaas taasoo leh maxaa looga qaadi waayay? si fudud. dalkaasi waa imaarado leh shuruuco kala duwan. qayb ahaan waxay cashuuraan hay-adaha shidaalka ka shaqeeya ee shisheeye, halka caasimadaha sida Dubai-na cashuur laga qaado hoteelada waaweyn iyo goobaha bandhigyada madadaalada lagu qabto. sidoo kale dalkan waxaa cashuur culus la saaray soo dejinta khamrada. Cumaan. kana waa dal kale oo gacanka ku yaalka oo aan muwaadiniinta cashuur ka qaadin. muwaadiniinta mushahariga ah iyo kuwa marqumaalka ah midkoodna cashuur ma wajaho dalkan. kaliya dadka mushaharaadka wanaagsan qaata ayaa bishii bixiya 6%, taa oo ay ku taageeraan sugidda ammaanka dalka iyo kaalmaynta dadka howlgabka ah.